waxaa hadda la qiimeeyaa xirajoogiina akhlaaqdiina darajooyin baa bixi doona Soomaaliland darajadoodii ee cidii la socod xalka jiraan waxba kama jiraan mid Soomaaliya caadi ah soo baxaysa oo khatuma leedahay magaciinu wuxuu ku kooban yahay ciidamada SSC inaaji waxaan saa u leeyahay uma qalantaan in hayb iyo qabiil la ku sheego maanta deegaanka joogtaan magacii gumays intiina halka fadhida ee Soomaaliyeed saddex qaybood oo ciidan aan soo marna qaybtii saddexaad baa joognaa oo laga arki doono wariyaha tiinikada taagnay qaybtii maraafiicda oo soo dhaafna iyo mid kale ka saddexda ciidan oo ka kooban Soomaali baa SSC ku midoobay qodob labaad baan idinku darayaa xaafus si waqro soo badagto laga balaha maanta kan weelay ya halka aad joogtaa waa gumays iyadoo aan ku xurmeynayno maamulkayaga iyo ismadayada go'aankooda haddana aragtida saxda ah waa muhiim in loo sheego dhalaanka iyo ummadda Soomaaliyeed deegaanka aad joogtaan deegaanka SSC uu kala baraya kala barkii SSC baa joogtaan nabad baa la idin biday in la yaabarta hadhaafina laakiin macnaheedu nod xuduud la yaakan maaha inta sharaacada islaamka markaad eegto dhulkaas ka banaan waxa lagu oranayaa maxaad ku yeelata waxba ku mulkiyo baad oranaysaa maxaad ku mulkiyo mageed baad ka beertay ceel baad ka qodatay waxbaad ka dhistay waa hadda xagga sharaacada marka la iska wadaayo xagga qabiilkii waxa laga tago deecaynaba waa tan guyihii baa ka dhisan ceelashii baa ka qodan sidii bay yaala marka dhulka SSC widig u kala baran yahay meesha joogtaan laakiin maamulkiina go'aanka qaatay inaad nabad ku baadi doonaan deegaamadood kale ciidanka dalka ugu badan baysahan marka la guleed galaad meesha la yiraahdo dadweyn aynada halkaas taxta dowladda barkada haba ku asan guleed galaad meeshu ka asan koonfurta waa ka yimi waxa la yiraahdo oday sicilata oo ka asan waxa la yiraahdaa qolyaha heer koonfurta ayada iyaartay baa ku asan iyaartay baa ku asan meesha si ugu qabsanaya marka meesha odayga awoow ka asan yahay hayman meel oranaya waxaan ogal lahay wixii dhaqaale ka galay guryaha inaan dib ugu celino iyagoo sidoo nabad wax xalaada dhigay dhaqaalii ka galay baan celinaa ya taas waa taas ciidan Soomaaliyeed baa tii waxaad ku soo dagaal gasheen qabiilnimo Soomaalinimo dalcayl in badan baa soo halgateen waxaan rabaa maanta deegaanka qof kasta oo ku dhintay xaqooq ku leeyahay taliyaha arrin baan marsanayaa gaajana ka dhawaatiyay ciidanku taliyaha waxay tabayaan bariga waa tilay gabdhaha farafara la guursado gabdhihii 800 garaam bay sheeganayaan balantuma waxay ahayd wala soo halgamay wala soo dhintay hal la jabiyo baasha diintu waxay qabtaa in la jabiyo aroosyada oo salliga iyo flaashka la soo guursaday haggani oonka ka baxeen arrintaada garaadada loo geyn doonaa wax qaaliya maanta ma awoodna anagu waynu isgaranaynaa baan u malaya haddaydan garanayn aniga Cabdimaadi Shaad Daliyadaa waxaan idinku magacaabanayaa agaasimiye dhaawacyada aaga galbeed ama degmada ugu SSC waxaan isku arkaa inaan shaqada haysan shaqada mid aan hayo dhaawac idinka saacid ma aragteen way joogaan dhaawacyada Soomaaliya ku soo baxay way fadhiyaan hadda yaa ka jooga wax sida abiya soo aragteen sidaasaan waliba qabiil ku bilowna xaajada ayaan maamul idin shaqeynay waxaan idinka imi raaskaan booli ma ka soo baxa bisha afraad baan idin imi laba bilood dagaal ka socday waxaan u maleynayaa dhaawacyada ka warrami doona meelaha ku soo kulanay yaarihi wali way ku jiraan kuwa kale way soo caafimaadayaan dagaal xaq darro ah oo haayo qofka intaas ay kala goobo ee saadu dhimanaya magac Ilaahay ma dhibanay faysal wuxuu yiri 900 baa dhibatay faysal waraade marka ayaan 32 sano jiray Soomaaliland Soomaa lacagta mushaarka maxaa lagu bixiyaa gacanta Soomaa hadda markii la dhamaaday waxay yiraahdeen lacagtii galsiin joog ciidankii waa la waayay oo tawar baan idin hayaa maalinkaas dagaalamteen meesha yaacay nimankii qolyihiina waa dhigeen tuutiina waa bixiyeen iyaga jamaahirada la socday oo le SSC baana ya حقيقة إذا شيء 3500 بان مد لقى هاي
saddex kun iyo shan boqol oo lambar baan mid laga hayn oo reerkaa ka baqan reertolkiin oo muuse soo khalday saddex kun iyo shan boqol lagu wada qabno waa jamaahiiraysan yihiin qaar baa ilaa garow soconaya ya ha ilaa xamar bay sii socdaan war ma garatee waxa weeye qofkii tuutiina waa bixinaya shaatiina waa bixinaya waxa weeye suuq sida hordaya adigu bal waa jamaahiirta soo qabo inaga dagaal bay iska jiraan waxa la ii sheego la cadeey maalmaha kamida ciidanka fadhiya qayb kamida maalinkii magaalada Isbaanka taacsanayay ayaa nin baa soo raacay ciidanka markaas ay madowgiisa faraha badnaada ka shaqeeyeen waxa firka leeyahay waa la tirsan moogta firka heerka hartiga badana waa isku fir ogaa qof yar gaaban oo tacas iyo qof yar madow gaaban arkimaysa moogta raqamadan ka baranay hay'adaha bari gaareen in Mareykanka iyo ku war maxaa ku soo artay laasaas siwiil waxaan ku soo arkay in qabiga iyo xaaj lagu leeyahay iyo qof yar oo tacas hoosta ka disay ma san ku ri oo wax la baro hadda u socdo marka nin baa soo raacay madowgiisa leeyahay war maxaa lahay siidi deeris baan rubaantaa bartii way dhaafay rubaanta halkan guubays buu kaga digay abuurkii in yar goobta dhaafay amarka la jamaahiirta soo qabatay qoladii uu la socday bay seeshkii meesha tagta qaybta ku xiran yihiin misadii baa xiran oo wallahi wa billahi wa tallah wa xiraniki waa isagii lahaa rubaantana horta saasa loo jamaahiiraysay dadkii wali waa joogaan bal meelaha ka baara ya waxa weeye 2 ka hore hadalka soo laabay 2 sano lacagta lagu bixinay gacanta maamulka SSC Khaatumo taliyuuna wuu maqlayaa data la ku bilaabaya data face wax la yiraahdo baa la ku bilaabaya hadii lacagtada ay kugu soo dhacdo magacaaga saddex suulkaaga ishaada ay kugu soo dhacdo adoo hebel ka warama 2 sano samaysan kari waayeen anagu hadda bilaabay nada Khaatumo ya waxa hadda la qiimeeyay xirajoogiina akhlaaqdiina darajooyin baa bixi doona Soomaaliland darajadoodii cid la socod xalka jiraan waxba kama jiraan mid Soomaaliya caadi ah soo baxaysa oo Khaatumo leedahay u dulqaata u sabra waxa weeye dhibaato ma arag qof injil gashay ma leeyidin waxa ilaahay mahadiisa ku soo koobaya ciidanka faraha badan Soomaaliyeed oo reer SSC iyo harti iyo Soomaali weyn bas ugu jira in Abdullaahi dhaga weyne uu taliye u wada yahay maanta oo soo maaha iyagoo meel walba iska yimid Abdullaahi taliye u yahay ma sha Allah saraakiishina tixgeliya wasaayid la hadlay laakiin ma yarhayaalow waan ka naxaa wax xun aan maqlo khamriga iska fogeeyay sidii kala dad dabiir la u tiin waxaan u tiin aad bal sala fuleed xageeyana sharafad kaleedii waxaan idinku soo koobayaa war aniga Cabdimahad Kaas Kaambooni cilifka Soomaaliya Kenya walaal xuduud beenaad uu yahay xuduudkaas uu kayaga uu yahay haddana bartaas adiga keenteen 16 sano deegaanka maqnaa waxa igu soo celisay rajadii wallahi baalki dagaalka la galay wallahi kaas waa Cabdiwali insha Allah salaanta waxay noo bilaamatay maalinkii la galay laascanood bay salaanta noo bilaamatay maalinkaas xalaal yahay baan ya idinka halka ayaa keenay waana aniga halka qayb ka galay aad baan idin salaamay barasho wanaagsan